وكسمال وككوبن صدح وريق أو ترتمياشا كردوان أي كو ترتمان تم سؤالات وريق كواد يشن سؤالات وريق لباد يهل سؤال وريق ستحاد حدي أدونيسو كقيم قادة سنة برنامج كسمال كسو جواب سؤالها كسو دعي دونا لمبركاغو سمتيل adigoo soo qoraya jawaabtaas leedahay waa tan saxda ah sida ba ta ja ama xa kadibna ku dir lambarka 822 wixii faahfaahin intaasi dheer kala xiriir qancinta macaamiisha telefoon lambarkiisu yahay 100 ama 66 ebereber assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh ramadaan kariim daawadayaal meel kastoo adduunyada ka joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka kasmaal somtel puntland oo idinkaga imaanaya magaalada garowe ee caasimadda dowladda puntland habeen walba saacada geeska Afrika markay tahay 9 fiidnimo ayaad barnaamijkani ka daawataan TV-ga iyo raadiyaha dawladda Puntland iyo sidoo kale bartaan ku leenahay Facebook-ga ee warbaahinta dawladda Puntland waxa sidoo kale barnaamijkan aad ka dheehataan barta shirkadda Somtel Puntland ay ku leedahay iyaduna Facebook-ga ee Somtel Puntland ku soo dhawaada kasmaal iyo tartamayaashii kala duwan ee ku tartamayay aqoonta kala duwan ee uu xambaarsan yahay barnaamijka kasmaal ku dheeraan maayo waxaan u yeerayaa tartamaha ugu horeeya ee barnaamijka caawa wiilka lagu magacaabo Maxamed Cali Axmed hal soo dhaweeyo السلام عليكم محمد وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته soo dhawow ku soo dhaweynaya barnaamijka kasmaal waa kuma Maxamed كل يوم magacay waa Maxamed Cali Axmed waxaan kamid ahay dhalinyarada dalka wax ku baratay dugsiga dhexe hoose magaalada Boosaaso jaamacadda Garowe jaamacadda Bariga Afrika kulliyadda Environmental Science hadana kamid ah barayaasha ama macallimiinta Soomaaliyeed macallin baa tahay ma sha Allah dabcan marka wax badan baad arday imtixaanto su'aalo weydiisay aad iyo aad caawa adiga su'aalo la weydiinaya aad iyo aad su'aalaha waa soo dhaweynaya in wax la weydiiyo caawa maadaama aan dadka wax weydiin jiray horena waa lagu soo weydiiyay haddana waa lagu weydiiyay in badan waayahay maxaad ka aaminsan tahay kasmaal run ahaantii waxaan ka aaminsanahay barnaamij dhalinyarada gaar ahaan faa'iido weyn u leh aad iyo aadna looga faa'iideysto bulshaduna ay aad ugu xiran tahay waxaana daliil u ah intaas caawa ka soo qayb gashay sidoo kalena habsami wanaagsan inuu socdo waa arkaa inuu ka sii wanaagsanaan doona waa rajeynaya aad u maasan tahay markaad eegtid su'aalaha inta badan ay dhalinyartu khaldayaan oo ay barnaamijka kaga harayaan maxaad isleedahay way ugu badan yihiin way ku xun yihiin dhalinyarada markaan qiyaaso su'aalaha inta ugu badan kasmaal horta waan daawan jiray isagoo ka socda dhinaca waqooyiga intaan Puntland ka soo marka xogaa difference baa u dhaxeeya markaan daawaday dhinaca waqooyiga iyo dhinaca Puntland waxa ku badan su'aalaha inta badan taariikhda ah ku badan inta badan dhalinyaradu waxay khaladaawaa taariikhda xagga waqooyigana waxa ku badan su'aalaha dhaqanka ah oo inta badan dhalinyaradu waxay khaladaa su'aalaha dhaqanka ah oo Soomaalidu hore iyo waxaan guud gali doonaa Maxamedow marka su'aalahaagi dabcan haatan dhaqankii iyo diintii iyo taariikhdii intaba uu kulminayaa kasmaal 2019 bal waxaan rajeynaynaa in aynu meel fiican ka gaarno diyaar insha Allah Maxamed Cali Axmed waxaan u bilaabi doonaa su'aalihiisa su'aasha koowaadna waxay oranaysaa heesta haddii aanan dhulkaygow waxaa curiyay ba abwaan Cabdi Qays ta abwaan gaariye ta abwaan Axmed Salabaan ha abwaan Hadraawi xusuusnow waxaan haysanaa Maxamedow saddex fursadood mar ayaa laba laga tuurayaa marna qaybgalayaasha ayna caawinaya marna qof ayaan wacanaa Somteena waqti waa inoo socdaa سأشتس تدوينها وديبي يعني dadweynaha inayna caawiyaan waayahay assalaamu calaykum ka qaybgalayaal waa idin salaamaya dhammaantiin soo dhawaada
aniga iyo maxamed waxaan rabnaa inaad naga caawisaan in badan waxaa laga yaabaa inaad maqasheen heesta haddii aanan dhulkaygow dhiig cadaawo kuu shubin haddii aanan dhulkaygow dabcan heestaasi baa lanooga baahan yahay ciddii tarisay qaybtood baaba ku luqeyna soo qaadayso waxaa laga yaabaa inay garanayaan bal ayla socono yaa tiri markaa ma ba oo cabdiqaysa mise ta oo gaariya mise waa ja oo axmed salabaana mise waa xa oo abwaan hadraawiya yaa qaba inay tahay ba oo abwaan cabdiqaysa cabdiqays waay yaa qaba inay tahay ta oo gaariya ta oo gaariya ta oo gaariya waay yaa qaba inay tahay ja oo axmed salabaana axmed salabaan ja oo axmed salabaana waaya yaa qaba inay tahay xa oo hadraawiya hadraawi isu soo noqon wanaagsan maxmed waa ujeedaa waxay codsanayaan su-aasha inay walaalo waan ku celinay mar kalena laguma celin karayo dabcan qofku haddii baadhistii ay ku fogaatay waxay ahayd intii hore aynu akrinayna inay kuusii baadhaan marka qaybtood waxay u codeeyeen axmed salabaan qaybtood hadraawi bay u codeeyeen dad aan badnayn gaariyay u codeeyeen si aan u shaki baxno haddii tuhum kugu jirana laba waa laynaga tuuri karaa go-aanna waan qaadan karnaa kooda waan ku raaci karno iyo inaan mid kale ka duwan qaadan karno soo dhawow haddii aanan dhulkaygu laba ka mid a ka saarba su-aashaas laba ka mid a si aan usii xaqiijino saan usii xaqiijino waayahay waxaan dalbananaa isla su-aashaasi in labana laga sii tuuro cabdiqays iyo axmed salabaan baa isku soo haray labadii aan tuhunsanaa waa isku saaray markii hore axmed salabaan baan ku adkaysanaya axmed salabaan oo ja waynu eegnaa heesta haddii aanan dhulkaygow waxaa curiyey ja oo axmed salabaana ja oo axmed salabaana waynu eegnaa soo maha heesta haddii aanan dhulkayga waxaa curiyey ja oo axmed salabaana ja oo axmed salabaana ayaynu wada eegi doonaa su-aashaasi jawaabteedu waa mid sax ah waaya su-aasha labaad waqooyiga soomaaliya wuxuu gumaystuhu yimi ba sanadii 1887 ta sanadii 1881 ja sanadii 1890 xa sanadii 1889 su-aashaas waxaan ku asaysanayaa 87kii inay tahay 87 87 miyuu yimi waqooyiga soomaaliya gumaystuhu 87 waan ku adkaysanaya waynu eegnaa hay ya hay go-aankeenu u dambeeyey waa eegnaa maxamed ma eegnaa hay fiir waqooyiga soomaaliya wuxuu gumaystuhu yimid ba oo ah 1887 kaas akhir tuhum baa kugu jira tuhum baa iigu jira 87 1889kii waan sanay xa xa oo ah 89kii hay maxaa 87 inoo kaxaysa 89kii laba ilaa sano 90yadii intaas kolley uun u dhaxaysa horta 81kii inaanay ahayn ma jeclahay marka halkaasaan ku adkaysanayaa dilaa 89kii baynu eegnaa 89 waqooyiga soomaaliya wuxuu gumaystuhu yimid xa oo ah 1889kii 1889kii ayaynu wada eegi doonaa xa oo ah 1889kii su-aashaasi jawaabteedu waa mid khalad waa 87 marka hore saxnayd isigu cabdi ku rajay barnaamijka Kismaal
aad baa u mahadsan tahay. xirmooyinka somtel ee maalinlaha ah uga bogo internet iyo hadal aan xad lahayn si aad u hesho garaac xidig 102 afar gees kadibna dooro 1 internet kadib dooro 3 xirmo maalinle ah kadibna ka dooro inta aad rabto inaad ku shubato oo hel hadal 24 saac ah iyo xirmo internet ah ku raaxayso adeega xirmooyinka somtel tusaale 25 senti waxaad helaysaa 500 oo MB iyo 24 saac oo hadal ah ku raaxayso adeega xirmooyinka ee somtel puntland mahadsanid waayahay tartamaha xiga ayaanu yeedhayaa wiilka lagu magacaabo cabdulaahi cabdulqaadir axmed hala soo dhaweeyey. asalaamu calaykum cabdulaahi. calaykum salaam soo dhawow. waa dhowe waa kuma cabdulaahi? cabdulaahi waxaan ku dhashay magacaygu waa cabdulaahi abqaadir axmed ku dhashay magaalada garowe xaafadda waa beri kuna soo barbaaray isla garowe dugsiga hoose dhexe kuna soo qaatay iskuulka alwaaxa dugsi sare ka soo baxay yaasiin nuur dheer martiga cumar sar qaybta qalkacyo haddana ka ah bartayaasha jaamacadaha gobolka nugaal jaamacadda BSU. maxaad ka barataa? facultyga social work. waan kusoo dhaweynayaa. barnaamijka hore ma uga qayb gashay? barnaamijkan kan kale weli kama qaybgelin waa daaweyn jiray. waad mahadsan tahay. su-aalihiisa ayaan u bilaabi doonaa cabdulaahi cabdiqaadir axmed oo ah tartamihii labaad ee barnaamijka caawa. waxaa lagu yidhi su-aasha koowaad cabdulaahow 10 su-aalood baynu hor yaallo wareega koowaad inaan ka jawaabno. 3 mar ayaynu haysanaa fursado. mar ayaa 2 laynaga tuuri doonaa, marna ka qaybgalayaasha ayaana caawinaya, marna qof baynu wacan doonaa. su-aasha koowaadna waxaynu odhanaysaa awrka geela loo daysto si uu u rimiyo waxaa loo yaqaan ba baarqab, ta karinle, ja qurbac, xa koron. waqtigu waa inoo bilowday, jawaabtuna waa dhankaaga. marna baadiye ma tagtay? ku dhawaaday. yaa hadda ku dhawaaday. ku dhawaatay weli geel waa arkay geel. yaa waa arkay. haye awrkaa laga sheekeynaya ma ku aragtay? awrkan haa. ku dhex aragtay geel? haa. waa gartay. haddaa jawaabta isku dayo waxaan isleeyahay jawaabtaas ani maskaxaanteeda raaxaanteeda waa xarafka b ah baarqab. ba oo baarqab ah. awrka geela loogu talagalay inuu rumiyo. baarqab miya? waa horta baarqabka geela. awrka geela loo daysto si uu u rumiyo waxaa loo yaqaan ba baarqab. ba oo baarqaba ayaynu wada eegi doonaa. ba oo baarqaba su-aashaasi jawaabteedu waa mid sax ah. waay su-aasha labaad waxayna odhanaysaa 100 kun oo shilin Soomaaliya shaqaysanay. dudumada waxa ay ka samaysan tahay candhuufta, ba aboorka, ta maroodiga, ja dhurdaha, ha laxlaha. waqtigu waa inoo bilowday, jawaabtu waa dhankaaga. baadiyihii weli ka bixi laada. asleeyahay taasi waa ana dalada. ya wax leedahay ninka baadiye matiina. anigu ismalihi barnaamijka weyn. Fransimia. aadiya mid sigaar ifirsanaya. laga yaabaa kuwa kala badan inay soo socdaan. hadaan su-aashan labaad adaan isku dayo mar labaad ani ahaanteeda iyo waxaan isleeyahay jawaabteeda fikraanteeda tee fursad haystaan hore intaan degdegin. waxaa haysataa mar 2 in laynaga tuuro, marna ka qaybgalayaasha ayna caawinaya. ka qaybgalayaasha ayaa baynu dalbanaa inayna caawiyaan. waqtigan sii qayaay. waayahay waa mahadsan tahay. aniga cabdillaahi waxaan rabnaa ka qaybgalayaal inaad naga caawisaan. dudumada waxa ay ka samaysan tahay candhuufta, ba aboorka, ta maroodiga, ja dhurdaha, xa laxlaha. yaa qaba inay tahay ba oo aboorka ah?
waa mahadsantihiin yaa qaba inay tahay ta oo maroodiga ja oo dhurdaha ah xa oo laxlaha isu noqod wanaagsan okay haddaan jawaabtan u guuda galo aan dee dabcan sidaas lahaabay beelqataba marka waa xarafka b aboorka ba oo aboorka ah waayahay dudumada waxay ka samaysan tahay candhuufta ba oo aboorka ah ka qaybgalayaasha ayaa jawaabtaasi na siiyey anuna waa ku raacnay su-aashaasi jawaabteeda ayaan wada eegi doonaa waana jawaab sax ah waayahay 200 oo kun oo shilin Soomaaliya su-aasha saddexaad sagaarada dhadig waxaa loo yaqaanaa sagaarada dhadig waxaa loo yaqaanaa ba ya ta golcas ja atoor ha usli weli baadihii bay ku wareegaysaa sagaarad magaalo ma ku aragtay sagaara marba laamigaana maray arkay laamigaada maray safar socda waaya dabcan waxaa codsanayaa bal inaan mar labaad qaybgalayaasha fursadaas inaan ka faa'iidaysto waa ka xunahay ka qaybgalayaasha hal mar bayna caawin karaan markiina wayna caawiyeen okay haddaan su-aashan isku dayo jawaabteeda waxaan is leeyahay yani waa xarafka b ya ba oo yac ah waad hubtaa waa ka hubaa waynu eegnaa ya sagaarada dhadig ma yac baa la dhahaa waayahay waa go-aankeenu dambeeyey sagaarada dhadig waxaa loo yaqaanaa ba oo yac ah ba oo yac ah ayaan wada eegi doonaa ba oo yac ah su-aashaasi jawaabteedu waa mid sax ah waayahay su-aasheenna afraad waxayna odhanaysaa 300 oo kun oo shilin Soomaaliya in shaqaysanay su-aasheenna afraad waxayna odhanaysaa guddoomiyihii baarlamanka ee sanadihii 2009 ilaa 2013 waxa uu ahaa ba xaaji yuusuf axmed ta axmed cali xaashi ja siciid xasan shire xa cabdirashiid maxamed xirsi haddii aad la socotay siyaasaddii iyo isbedeladii puntland ka dhacay dabcan waa inoo fududaanaysaa inaynu jawaabta helno haye hortaada fiiri adoo raalliya kor xagga ma waxbaa ku yaalla saacadda fiiri marka waxaynu haysanaa xusuusno walaale cabdilaahu laba fursadood mar in laba laynaga tuuro iyo inaan qof wacano laga tuura in laba laynaga tuuro inta halka ku qoran midna ma ka shakisanta intaasoo ay hadhowtood inoo soo hartaa laba waxaan is leeyahay waxaan ka shaksanahay xarafka ja waayo waxaan dalbanaynaa in labana laga tuuro jawaabaha in labana laga tuuro ayaan dalbanaynaa ja waa ku daysay waxaa isku soo haray ta oo axmed cali xaashiya iyo xa oo ah cabdirashiid maxamed xirsi waxaan is leeyahay jawaabtan u guda galo haddaan isku dayo xarafka xa cabdirashiid axmed xirsi cabdirashiid maxamed xirsi waad hubtaa guddoomiyihii baarlamanka 2009 ilaa 2013 cabdirashiid maxamed xirsi buu ahaa kaa huba waan eegnaa eeg ya yareeg waayahay guddoomiyihii baarlamanka puntland 2009 ilaa 2013 waxa uu ahaa xa oo ah cabdirashiid maxamed xirsi alla naxariistii jannaha ka waraabiye cabdirashiid maxamed xirsi ayaynu wada eegi doonaa su-aashaasi jawaabteeda ayaynu wada eegi doonaa waana jawaab sax ah waxa aan kasoo wareegin bil ayuu mootan yahay alla naxariistii jannaha ka waraabiye cabdirashiid maxamed xirsi guddoomiyihii baarlamanka wuxuu ahaa xilligii madaxweyne dr cabdiraxmaan sheekh maxamed maxamuud faroole soo saas ma waaya su-aasha waxaynu odhanaysaa shanaadi xawaaraha wareega dhulku ku wareega qoraxda waa ba 2000
saacadii ta 4,000 laakiin maxaa halbeeg ma raacsana may okay صح su-aasheena shanaad waxay odhanaysaa xawaaraha wareega dhulku ku wareega qoraxda waa ba 20,000 saacadii ta 4,000 saacadii ja 60,000 saacadii xa 80,000 saacadii soo dhow بسم الله الرحمن الرحيم haddaan isku dayo jawaabtan u guda galo xawaaraha wareega dhulka ku wareega qoraxda waa xarafka xa 8,000 oo saacadiiba 8,000 kuma qorna xa 8,000 8,000 8,000 miya ma fursad baa inoo hadhay ah inaynu qof wacano si uu tuhunka inooga saaro طبعا فرصداس ما بدنا كرا مد كان بدنا كرا اوكي كوريك وقولك ugu dambeeyay yes xawaaraha wareega dhulku ku wareega qoraxda waa xa oo 80,000 saacadiiya xa oo 80,000 saacadii ayaynu wada eegi doonaa xa oo 80,000 saacadii ayaynu wada eegi doonaa su-aashaasi jawaabteedu waa mid khalad waa ja oo 60,000 saacadiiya ja oo 60,000 saacad si wacan buu ku rajeynaya barnaamijka Kismaal Cabdullah ان شاء الله ما دhow maro aad baa mahadsan tahay kaaga mahadcelinaya waqtiga qaaligiisa waa Kismaal oo ka kooban 3 wareeg oo tartamayaasha kala duwan ay ku tartamaan 10 su'aalood oo wareega koowaad iyo 5 su'aalood oo wareega labaad iyo 1 su'aal oo wareega saddexaad haddii aad doonayso ka qayb qaadashada barnaamijka Kismaal ka soo jawaab su'aalaha ku soo dhici doona lambarkaaga Somtel adigoo soo qoraya jawaabtaas leedahay waa tan saxda ah sida ba ta ja ama xa kadibna ku dir lambarka 822 wixii faahfaahin intaasi dheer kala xiriir qancinta macaamiisha telefoon lambarkiisu yahay 100 ama 66 ebereber waayahay tartamaha xiga ayaan u yeedhayaa markan hala soo dhaweeyo gabadha lagu magacaabo Faadimo Nuur Xasan السلام عليكم فاطمة. وعليكم السلام. سودو. kugu soo dhaweynaya barnaamijka Kismaal waa tuma Faadimo. Faadimo gabar ku nool Garowe kana barata jaamacad Beesha. Maxay ka barataa? Faculty Social Science. Department of Social Work. waayahay Faadimo hore ma uga qayb gashay barnaamijka? oo markii kuugu horeysay waaye gabadhii ugu horeysay oo caawa tartamaysa waa tahay labadii qof ee ka horeeyay wiilashahaana dabcan midkoodna way noo noqon weydeen inay ku guuleystaan mid kamid ah wareegyada hore adigu xagee hiigsanaysaa insha Allah inaan ku guuleysto marka koowaad mise ilaa ka labaad mise saddexdaba saddexdaba ma sha Allah إن شاء الله وحنكون رجعنا نصيب ونكسن كسودو سؤالها جا سؤال شكواتنا وحي أورنسا سؤال شكوات وحي إن لا ده هاي ضلك وغض مركير عالمك إن با أو عمانة تا أو كويت تا أو بحرين حا أو قدرة وقت جوا ينوب بالوضي فاضمي الكسودو طبعا isla doonasho ilaah baa la oran karaa su'aashaadii koowaad oo dumar la xiriirtay adigoo noqonaya gabadhii ugu horreysay caawa barnaamijka ka qayb gashay waxaan dhihi karaa waa wadanka Bahrain ee ja oo Bahrain waad hubtaa waxaan haysanaa fursado
in mar laba laynaga tuuro iyo in ka qaybgalayaashu marayna caawiyaan iyo inaynu wacno mid ka mid a saaxiibadeena somtel inaa laba laga tuuro laba in laga tuuraan dalbanaa waayahay waxaan dalbanaynaa aniga Faadumo in jawaabaha halkan ku qoran labana laga tuuro baxrayn wayna disay waxaa isku soo haray ta oo Kuwait ah iyo xa oo Qatar ah qadar Qatar waynu eegnaa ya go'aankeenu u dambeeyay dalka ugu dumarka yar caalamka waa xa oo Qatar ah xa oo Qatar ah ayaan wada eegi doonaa xa oo Qatar ah su'aashaasi jawaabteedu waa mid sax ah su'aasha labaad waxay ina leedahay qofkii ugu horeeyay oo sooma waa ba ciise ta aadam ta nuux xa ibraahim calayhi salaam dhammaantood waa nebiyadii soo dhawow xa oo nebi ibraahim xa oo nebi ibraahim ya ood hubtaa ya ma eegnaa fiir go-aankeenu u dambeeyey ya qofkii ugu horeeyey oo sooma waa xa oo nebi ibraahim calayhi salaam waynu eegnaa sooma ya haddii shaki lagu jiro waa lana tuhum saari karaa ka qaybgalayaashu wayna caawin karaan laga yaaba inay qayb garanaysaa ku jirto dad hubtidna waynu eegan karnaa muhiimaddu laakiinse waa inaynaan degdegin waxaynu ku degdegaynaa inay noqdaan wax sax tartamayaasha isu soo noqod wanaagsan ka qaybgalayaal waxaan rabnaa anigii Faadumo inaad naga caawisaan qofkii ugu horeeyay oo sooma ma wuxuu ahaa ba oo nebi ciise ah mise wuxuu ahaa ta oo nebi aadama mise wuxuu ahaa ta oo nebi nuuxa mise xa oo ahaa nebi ibraahima yaa qaba inay tahay ba oo nebi ciise ah ta oo nebi aadama ta oo nebi nuuxa xa oo nebi ibraahima isu soo noqod wanaagsan Faadumo in badan ayaa intii ugu badneed nebi aadam bay u codeeyeen saddex qof oo ka midana nebi ibraahim bay u codeeyeen laakiin labadaba go-aankooda adigu unbaa kala doorashada iskale ta oo nebi aadama ya qoladaasay raacnaa faraha badan waynu egnaanaa qofkii ugu horeeyey oo sooma waa ta oo nebi aadam calayhi salaam ah ka qaybgalayaasha ayaa jawaabtaasi na siiyey anana waanu ku raacnay ta oo nebi aadam ayaanu wada eegi doonaa su-aashaasi jawaabteedu waa mid khalad waxa oo nebi ibraahim aad u mahadsan tahay isigu aan ku rajeynayaa barnaamijka Kasmaal tartamaha xiga ayaan u yeedhayaa markan wiilka lagu magacaabo Cabdirasaaq Cali Aadan hala soo dhaweeyo السلام عليكم عليكم السلام ورحمة سو الله دhow Cabdirasaaq ودوهي waa kuma Cabdirasaaq كل يرام ما عبدالساق waxa weeye Cabdالساق Cali Aadan ku nool magaalada Garowe dugsiga sare ku lumeeyay haatan jaamacad ka dhigtaa jaamacadda Boosaaso maxaa ka barataa kulliyadda dhaqaalaha insha Allah wixii dhaqaale la xiriira waa inoo jawaabi doontaa dabcan hadii Ilaahay yiraahdo waayahay ku soo dhaweynaya Cabdirasaaq su'aalihiisa ayaan u bilaabi doonaa su'aasha koowaadna waxay odhanaysaa uryaha aanan ku jirin caanaha hooyada bini aadamka waa ba cholesterol ta borotiinka ta birta ha vitamin C waa uryaha aan ku jirin caanaha hooyada bini aadamka soo dhawow Cabdirasaaq waxaan haysanaa saddex fursadood mar ayayna caawin doonaan ka qaybgalayaashu marna laba ayaa laynaga tuuri doonaa marna qof been wacan doonaa
waxaan bandhigay dadban u bandhigayaa isu soo noqod wanaagsan mar kale ka qaybgalayaal aniga cabdisaaq waxaan rabnaa inaad naga caawisaan curyaha aan ku jirin caanaha naaska hooyada bini aadamka waa ba oo cholesterol ta oo borotiina ja oo bir ah iyo xa oo ah vitamin C yaa qaba inay tahay ba oo cholesterol ba oo cholesterol waa ujeedaa yaa qaba inay tahay ta oo borotiina ja oo birta ah xa oo vitamin C isu soo noqod wanaagsan cabdisaaq waad ujeedaa aad iyo aad haye vitamin C-ga qayb baa u codeysay inta ugu badnaydna cholesterolkii u codeeyay cholesterol bay u codeeyeen waay waxaan dooranayaa curyaha la yiraahdo vitamin C vitamin C-ga ya vitamin C-ga walaal go-aanina siiga waqti baan ugu socdaa cholesterolka ba oo cholesterol qolyaha cholesterolka raacnaa vitamin C-ga waa ka walacday ya aad iyo aad kuwaasaa badnaa baad istiri marka dabcan laga yaabay marka hore dad badan bay soo khaldeen qolyahaas ka qaybgalayaashu waa ku nasiibinaa maybe waayahay curyaha aan weli waxaynu haysanaa weli fursad ah inaynu sii kala hubino bal inay soo hadhay internet si laba laynooga tuuro mise waan ku eegnaa cholesterolka ku eegnaa curyaha aan ku jirin caanaha hooyada bini aadamka waa ba oo cholesterol su-aashaasi ayaynu wada eegi doonaa ba oo cholesterol su-aashaasi jawaabteedu waa mid khalad waa ta oo birta ah cid u codaysay ma jirin dabcan nasiib wacan buu ku rajeynayaa barnaamijka kasmaan cabdisaaq aad baan kaaga mahad celinaya waqtigaaga xirmooyinka somtel ee maalinlaha ah uga bogo internet iyo hadal aan xad lahayn si aad u hesho garaac xidig 102 gees kadibna dooro 1 internet kadib dooro 3 xirmo maalinle ah kadibna ka dooro inta aad rabto inaad ku shubato oo hel hadal 24 saac ah iyo xirmo internet ah ku raaxayso adeega xirmooyinka somtel tusaale 25 senti waxaad helaysaa 500 MB iyo 24 saac oo hadal ah ku raaxayso adeega xirmooyinka ee somtel puntland mahadsanid waa tahay daawadayaal barnaamijka kasmaal somtel puntland oo idinka imaanaya magaalada garowe ee caasimadda dowladda puntland intaasi ayaan kusoo gabagabeynayaa haro maxamed rasaas ayaa idinla socodsiinayay intaan habeenka soo aadan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doona waxaan kaga tegayaa dhammaanteen bahda kasmaal sidaas iyo nabadgelyo waa kasmaal oo ka kooban 3 wareeg oo tartamayaasha kala duwan ay ku tartamaan 10 su'aalood oo wareegga koowaad iyo 5 su'aalood oo wareegga labaad iyo 1 su'aal oo wareegga saddexaad haddii aad doonayso ka qayb qaadashada barnaamijka kasmaal ka soo jawaab su'aalaha ku soo dhici doona lambarkaaga somtel adigoo soo qoraya jawaabtaas leedahay waa tan saxda ah sida ba ta ja ama xa kadibna ku dir lambarka 822 wixii faahfaahin intaasi dheer kala xiriir qancinta macaamiisha telefoon lambarkiisu yahay 100 ama 66 eber